runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan golaha wakiilada oo maanta u garatay in aynu sessionkeennan ama fadhigeennan ku muujino xaaladda iyo duruufaha abaareed ee ku gadaaman gobollada Soomaaliland. Sida la socotaan anigoo ka mid ah guddida dhaqaalaha waxaa jirtay kalfadhigeennan inoo furan markii guddiyadu ay warbixinada la wadaagayeen. warbixintii golahaan la wadaagnay waxay ugu horreysay baaqa abaarta ah ee ku aadan gobollada bariga. gobollada bariguna iskuma wada jiraane gobolka tugdheerna iskuma sii wada jirtay ee gobolkii la odhan jiray ee daadmadheer ama wadweyne oo runtii aan ahay xildhibaanada laga soo doorto, sidoo kalena ogaal dheeraada u leh xaaladda abaareed iyo gurmadka loo sameeyey ee gobolka daadmadheer. runtii biyadhaanku wuxuu bilaabmay bishii 12aad buu bilaabmay oo gaar ahaan degmooyinka gobolka daadmadheer biyadhaanku halkaasay ka bilaabmeen. maanta oo la joogo xaaladda biyadhaanku maalinta sii dambaysa way kasii daraysay. qiimaha bishii December ee sanadkii hore dhammaaday dowladdu taagnayd $150 bay ahayd. imika waxay cagaynaysaa $300. waad dareemi karaysaa baahida gobolka haysata. biyaha iyo gurmadka la sameeyey waxay gaaraan waa dadka afkooda, gaar ahaan inta ku teedsan magaalooyinka ama degmooyinka. waxaa aad u haraadan oo iyaga ay la ilaaway waxa weeye dadkii reer miyiga ahaa ee xoolaha hayay iyo xoolihiiba. marka hadday abaartu sii dheeraato waxaa ku xigi doonta in xoolaha nool iyaguna ay dabar goyi doonaan, ninka miyiga joogaana uu baabi'i doono, innaguna culays inagu noqon doonto inaynu qarankan u shaqayno. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa sidii walaaladii igu horreeyey xildhibaanadu ay tilmaameen in guddiga abaaraha inaynu u yeedhno, maadaama waajibaadkeennu golaha ina furayo inaynu kuheshan garayno qorshahooda iyo qaabkooda, taasoo aad moodo in si slow motion lagu wado hawsha. waxaana moodaa in gobolladii la isla sugayo abaarta oo kii maanta darahadii wax laga qaban waayo mid kale laga sugo, iyadoo laftigeedu culays bay ku noqonaysaa. marka in hadda lagu diyaargaroobo oo la sii daayo sida loo kala daran yahay waan jeclahay. waxyaabaha soo jeedin lahaa waxaa ka mid ah miisaaniyad baa inagu soo socota, la yidhaahdo miisaaniyadda supplementariga oo ka timaada sanadkii hore dakhligii la filanayay iyo kharashkii. dakhligii baa ka batay, dakhligaa ka batay waxaa loo qoondeeyaa meelo. waxaan jeclaan lahaa in xukuumadda aynu dhulka ku boorino oo boqolkiiba miisaaniyadda dheeraadkaa ka timi 2021 loogu talagalo abaaraha gobollada haysta. waxaan jeclaan lahaa inaynu mudnaanta koobaad siino. sidoo kale waxaa la qabaa walaaladii yidhi golaheennu maadaama aynu shacabka ka nimi oo aan qabo xildhibaanada ila midkahay inay ku aadan yihiin iyaguba inay dowrkoodii qaateen inaynu si gol ahaana uga qayb qaadano. waxaan jeclaan lahaa walaalkii cabdiqali baa yidhi $300 calaa xildhibaano. waxaan jeclaan lahaa inaynu $500 u goyno oo intaasi ay noqoto wax emergency ama si degdeg ah aynu ugu talagalnay. taa marka laga tago waxaa la qabaa xildhibaanadii tiriyey shirkadaha waaweyn ee ugu horreyso shirkadda DP World. waxaynu ognahay shirkadda DP World waa shirkad dalka maalgashi laxaadla ku samaysay. maalgashigeedu shaqayn maayo haddii aan dadkii danyarka ahay ee dekadda isticmaalayay aanay la gurman. maanta xaaladda ku jirto waynu ogeyno maalmihii u dambeysay heshiisyaabay soo saartay ay ku kordhinayso tacriifadda. waxaan leenahay tacriifadda adina dib ugu noqo. sidoo kalena waxaan u baahannahay bal inaad qayradhaanta ka qayb qaadato. qodobka iigu dambeeya waxa weeye ka bixi mayno inaan sanad walba si la mida sidan gurmaduun ku jirno
waxaynu u baahan nahay inay golayaasheena qaranka ka soo baxaan shirka qaranka la dagaalanka abaaraha iyo baadla'aanta taas oo aynu doonayno inaynu national planning ama NDP 3ga oo hadda gacanta lagu hayo inaynu mudnaanta siino waxa la yidhaha biyaha aad u mahadsan